dagaal xooggan ayaa maanta ka dhacay gobolka Sanaag waxaana dagaalka ku dhaawacmay taliyo ku-xigeenka booliska Puntland iyo ciidamada hogaaminayay wararka laga helay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in iska horimaad uu halkaasi ku dhex maray dad shacab ah oo cariisan oo taageersan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Nooma Daareed iyo ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Juriil iska horimaadka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Midigale ee gobolka Sanaag kadib markii dad ka cariisan imaatinka gobolka Sanaag ay banaanbax kala hor yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland hase yeeshee ay ilaalada rasaas ku fureen Cabdirashiid Yuusuf Juriil iyo wafdigiisa ayaa waxa ay booqasho ku joogan gobolka Sanaag iyadoo dadka gobolkaasina aad uga cariisan yihiin xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland dadka ku sugan deegaanka Midigale ee gobolka Sanaag ayaa u sheegay warbaahinta in rasaastaas ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 ruux oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland taliyo ku-xigeenka booliska maamulka Puntland General Ciidid Axmed Nuur iyo askar la socotay ayaa kamid ahaa dadka ku dhaawacmay deegaanka Midigale ee gobolka Sanaag dadka dhaawacmay ayaa guud ahaan tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 11 qof oo 6 kamid ah ay yihiin ciidanka maamulka Puntland halka 5 kale ay yihiin dadkii banaanbax dhigayay kana soo horjeeday maanta gobolka Sanaag gudoomiyaha baarlamaanka Puntland banaanbaxayaasha qaarkood ayaa la sheegayaa inay adeegsadeen rasaas taas oo sababta inay ciidamada kaga jawaabaan keentay rasaas kale halkaasna ay ka dhalato dhaawac fara badan sidoo kale wararka laga helay gobolka Sanaag waxay sheegayaan in magaalada Baran uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday imaatinka deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Juriil arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaaf xun uu u dhaxeeyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Nooma Daareed iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dini gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Puntland ayaa dhawaan sheegay in maamulka madax bannaan Somaliland iyo Puntland uu ku hirgelinayo gobolka Sanaag oo ay inta badan beeshiisa degto dhawaan ay ahayd markii baarlamaanka Puntland ay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ka xayuubiyeen Nooma Daareed kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Siciid Dini